بسم الله الرحمن الرحيم وهبينما إسنينه أو تلادة أي سوء قليسو سقال يلاباتنك بشا سبتمبر سنة كاللبكن لباتن يشان أو كوبيغن تضبط بشا ربيع الثاني سنة كن أفر بقول أفرتن يتضبط تاريخ ذي هجريد قضبط عاو برامج كأن إذي كوغهيننا وحا كمدا. So this is a big day, a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization. ومدحوينها مريكا دونالد ترامب oo agtaagan ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ku dhawaaqay hindise ka kooban 20 qodob oo lagu soo afjarayo dagaalka Gaza. Israa'iil Netanyahu ayaa si rasmi ah waxa uu sheegay inay aqbashay hindisaha madaxweyne Trump, laakiin Hamas maxay kaga jawaabtay? waxaan idin haynaa wararkii ugu dambeeyay ee amuurtan iyo waliba qodobada uu soo bandhigay madaxweynaha Mareykanka. sidoo kale barnaamijka waxaynu ku eegaynaa Gaza ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan ciidanka Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa dhimasho dhaawac in loogu geystay dagaallo culus oo caawa ka dhacay magaalada Gaza ee bartamaha Jida Gaza. diyaaradaha qumaatiga u kaca ee Israa'iil ayaa kala daabulaya dhaawaca iyo meydka ciidamada iyadoo cisbitaalada Israa'iil qaarkood ay yihiin mashquul. Netanyahu oo lagu qasbay in raali gelin uu siiyo Qatar. wadahadal qadka telefoonka uu kula yeeshay ra'iisul wasaaraha Qatar ayaa Netanyahu waxa uu muujiyay cudurdaar ku aadan weerarkii Israa'iil ay ku qaaday magaalada Doha. Xuutiyiinta oo gantaal la dhacay markab gooshayay gacanka cadmeed oo watay calanka mid ka mid ah wadamada Yurub. markabkan ayaa waxa la sheegayaa dab inuu ka qaxameeyo. Israa'iil oo ku jirta heegan sare kadib markii Iiraan ay tijaabisay gantaal nooca ridada fog ah oo qaaradaha isaga kala goosha. Senator ka tirsan aqalka sanadka ee waddanka Mareykanka ayaa Trump ugu baaqay inuu soo afjaro dagaalka Gaza. sheekada ugu dambeysay barnaamijkan idinku hayaana waxay ku aadan tahay sawirka urku jirta oo waddanka Japan ka noqday mid la yaab leh kadib markii baraha bulshada sheeko la yaab leh oo la xiriirta sawirkaasi la soo bandhigay. haddaba maxay tahay sababto sheeko xiiso leh ayaan idinku haynaa qaybta dambe ee barnaamijka. dhammaan wararkan iyo weliba warar kale ayaan barnaamijka idinku soo gudbinaynaa. caawa waxaynu ku bilaabaynaa faahfaahin dheeraad ah ayaa waxay ka soo baxaysaa weerar la aaminsan yahay Xuutiyiintu in ay ka dambeeyeen oo lagu qaaday markab gooshayay gacanka cadmeed. haddaba wararkii ugu dambeeyay amuurtan oo wakaaladaha wararku ay wax ka qoreen sida wakaaladda wararka ee AP iyo AFP ayaa waxaa lagu sheegayaa in markabkan la beegsaday lagu magacaabo Miner Fragrakis waxaana uu ku gooshayay calanka dalka Holland. markabkan ayaa toddobaadkii hore sidoo kale lagu qaaday weerar fashilmay oo ay fuliyeen Xuutiyiinta sida ay sheegtay xarunta Faransiiska ee wacyigelinta iyo iskaashiga badda. waqtigan markabku wuxuu ku jiraa xaalad dab uu ka qaxmayo ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xaruntan, iyadoo intaasi lagu daray in markab dagaal loo diray goobtaasi. warbaahinta maxalliga ah ee dalka Yemen ayaa waxay ku soo waramaysaa suurtagalnimada in gantaalkan uu ahaa nooca balastiga kaas oo laga tuuray dhulka ay maamulaan Xuutiyiinta Yemen. dhaqaaqa Xuutiyiintu kama aysan hadlin weerarkan, balse caadiyan waxay qaadataa saacado ama maalmo ka hor inta aysan sheegan weerarada. shirkadda iska leh markabkan oo fadhigeedu uu yahay magaalada Amsterdam ayaa waxaa lagu magacaabaa Splithof kama aysan jawaabin xiriiro saxaafaddu ay la samaysay. lama oga sababta laba mar markabka loo beegsaday. Xuutiyiinta ayaa tan iyo bishii November 2023 waxay weeraro gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ku hayeen maraakiibta badda cas iyo Israa'iil, iyagoo sheegaya in ay taageerayaan Falastiiniyiinta. weerarkan wuxuu ahaa kii ugu horreeyay ee ka dhaca aagga gacanka cadmeeda tan iyo bishii Agost 2024. weeraradan ayaa 2 sano dhaafay waxaana la sheegayaa in inta badan Xuutiyiintu ay beegsanayaan maraakiibta lagu xiriirinayo Israa'iil iyo kuwa laga leeyahay gudaha Israa'iil. weerarkan maanta ayaa waxa uu yimid xilli Israa'iil ay kordhisay weerarada ay ku hayso Mareykanka Gaza isla markaasna duqeymo ay ku hayso waddanka Yemen.
وقتها معلومات كاسا إنه كي جدوبنا مركن بلين أجنا وروين ودنك إسرائيل كصباحية مسؤوليتها لابها أمان كإسرائيل أي وحال لقصة ورمياه إن أي صو صارين أوامر عرس في جنان سراح تأسيء لحريرته قنتال إيران أي تجابسي ساعده لصورها في هدبا جريرة لغو مقعبة إسرائيل هايوم أي ور أي دابعدي وحا أي كشيكتي إن صور دي حقعميده أو أي بايسي وكارده وررك AB أي موجينيان على مدو دب يردقاق موقده بلوغا تجابة أو كردعي xarunta ciidamada cirka Imam Khomeini ee dalka Iran dadka isticmaalaha baraha bulshada ayaa sidoo kale soo dhigay akoonadooda sawirro muujinaya raad qiiqeed oo cirka ka muuqda kuwaasi oo falanqayaasha ku fasireen caddaynta gantaal hawada ku socda Mohsin Zanganeh oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Iran ayaa telefishinka dawladda u sheegay in Iran ay fulisay tijaabo amni oo mid ka mid ah uu yahay gantaal aad u horumarsan isagoo ku tilmaamay tijaabadaasi mid guuleysatay wuxuu ku adkaystay in Iran ay tahay inay ilaaliso awoodeeda cabsi gelinta inkastoo cadaadis iyo cunaqabateyn caalamiya lagu hayo warbixintan ayaa waxa ay timid maalmo uun kadib markii qaramada midoobay ay dib u soo celisay cunaqabateyno baaxad leh oo lagu soo rigay Iran taasi oo meesha ka saaraysa heshiiskii nuclearka ee 2015 ee loo yaqaan JCPOA isla markaasna mamnuucaya iibka iyo soo dejinta hubka ee Iran mas'uuliyiinta difaaca Israa'iil ayaa u sheegay wargeyska Israa'iil Hayom inay aaminsan yihiin in labada bilood ee soo socota xaaladdu cirka ay ku sheegnaan doonto iyagoo ka digay in Iran ay qaadi karto tilaabo degdeg ah inkastoo cadaadis dhaqaale iyo mid siyaasadeed uu ku sii kordhayo ciidanka qalabka sida ee Israa'iil ayaa lagu soo waramayaa in uu kordhiyay ururinta sirdoonka iyo diyaar garowga howlgalka iyadoo la qorsheynayo xaalado ay ka mid yihiin in gantaalada iyo diyaaradaha droneska lagu soo weeraro Israa'iil ama xiisadu ay ka imaan karto kooxaha hubaysan ee Iran ay baritaarto ee gobolka ka howlgala dawladda Iran iyo ciidamada qalabka sida midkoodna ma aysan bixin xaqiijin rasmi ah oo ku saabsan tijaabadan la sheegay in lagu sameeyay gantaal nooca qaaradaha isaga gudba sida wararka ugu dambeeya ay sheegayaan waa hagaag gordhow waxaan u gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay Gaza halkaasi oo lagu soo waramayo caawa in ciidanka Israa'iil lagu galay dhimasho dhaawac ayaa la soo warinayaa diyaaradaha qomaatiga u kaca ee Israa'iil ayaa dhaawac kala daabulaya waxaan kaloo idin soo gudbinaynaa shirkii jaraa'id ee gordhowito ay wada qabteen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo 20 qodob ee la soo bandhigay maxay yihiin qodobadani Hamas maxay kaga jawaabtay warbixin baan idin haynaa amurtaasi ku aadan hagaag warbixinta ku saabsan qadar raaligelinta la siiyay intaan u gudbin aynu haatan ku hormarna Mareykanka Gaza halkaasi oo caawa lagu soo waramayo in dagaalo culus ay socdaan isla markaasna ciidanka Israa'iil qasaaro balaaran la gaarsiiyay iyadoo la sheegayo in diyaaradaha qomaatiga u kaca ay kala daabulayaan meydka iyo dhaawaca ciidanka Israa'iil sida ay soo warinayso warbaahinta Israa'iil iyo tan Falastiiniyiinta weerarka xooggiisa iyo dagaalka ayaa waxaa lagu soo waramayaa in iminka uu ka socdo aaga cisbitaalka Al-Shifa sidoo kale xaafadda Al-Nasir ayaa waxaa la sheegayaa dagaal culus inuu ka socdo sida warbaahinta Israa'iil ay tabinayso dhinaca kale warbaahinta Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in dhacdo amni oo aad u culus ay ka dhacday magaalada Gaza halkaasi oo lagu dilay askar Israa'iiliina kuwa kana lagu dhaawacay ila xogogaal ah ayaa waxa ay sheegeen in 2 askari la dilay ugu yaraan 8 kalena la dhaawacay waxaana la sheegayaa qaarkood dhaawacooda inuu yahay mid halis ah warbaahinta Israa'iil ayaa waxay sheegaysaa in diyaaradaha qomaatiga u kaca dhaawacyada ay u qaadeen cisbitaalada ku yaala Tel Aviv iyo Beershacba taasi oo muujinaysa in qasaaruhu inta la sheegay uu ka badan yahay bacdama 2 isbitaal la geenayo dhaawaca waxa intaasi lagu daray in xogta hordhaca ay muujinayso in taangi ciidamada Israa'iil ay wateen lala helay qoryaha garabka laga rida ee gantaalada kaas oo ku sugnaa gudaha Gaza wariye ka tirsan telefishinka Al Jazeera ayaa isaguna waxa uu soo sheegayaa in dagaaladan ka socda xaafadaha Al-Shifa iyo Al-Nasir si weyn looga maqlay aagaasi waxaana socda sidoo kale duulimaadyo aad u badan iyadoo diyaaradaha qomaatiga u kaca kuwa droniska iyo diyaaradaha kale ee dagaalkuba duqeymo culus ay wadaan
waxaana la sheegayaa in ciidanka Israa'iil dababaadkooda dagaalka ay isku dayayaan inay u gudbaan gudaha magaalada Gaza halkaasi oo la sheegay inay taangiina ku sii gurguuranayaan laakiin xogaga iska cabinta Falastiiniyiinta ayaa lagu soo waramayaa in ay wadaan weeraro jilbka ay u aasteen ciidanka Israa'iil ma jiro war rasmi oo ka soo baxay iska cabinta oo la xiriira weerarkan caawa dhacay laakiin waxa la weerarkan wuxuu ahaa kii ugu xumaa ee ciidanka Israa'iil ay la kulmaan maalmihii la soo dhaafay waatahay wararka dhanka diblomaasiyadda aynu eegno ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxaa la sheegayaa in raaligelin uu ka bixiyay ku xadgudubka qarannimada Qatar iyo dilka askari ammaanka gudaha reer Qatar oo lagu dilay weerarkii lagu qaaday Doha 9kii bishan September sida ila dhanka diblomaasiyadda ay sheegeen ilo wareedka ayaa waxay sharaxeen in raaligelinta loo gudbiyay ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani waxaana la sheegay in Netanyahu iyo Trump ay markaasi ku jireen kulanka markii telefoonka lagu wacay ra'iisul wasaaraha Qatar ilo wareedku waxay kaloo sheegayaan in Netanyahu uu sheegay in markaa arrintaas aysan noqon doonin mid dib dambe Israa'iil ay u samayso macluumaadkan ayaa waxaa sidoo kale la sheegaya aqalka cad inuu war soo saaray waxaana la yiri Netanyahu wuxuu ka qoomameeyay weerarka Israa'iil ay ku qaaday dalka Qatar iyo xadgudubka ay ku samaysay madax banaanideeda intii hadda aynu barnaamijka ku jirnay ra'iisul wasaaraha waddanka Qatar ayaa soo hadlay iyadoo la soo xiganayo wakaaladda wararka ee dalka Qatar ee magaceeda loo soo gaabiyo QNA wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Qatar ayaa waxay ka soo xigtay ra'iisul wasaaraha ahna wasiirka arrimaha dibadda Qatar in Netanyahu uu si rasmiya raaligelin rasmiya uu siiyay Qatar kadib markii xadgudub ay ku samaysay waxaana la yiri wuxuu halkaasi ka ballan qaaday in mar dambe Israa'iil xadgudub aysan ku samayn doonin waddanka Qatar wasaaraddu waxa intaasi ay ku dartay in arrintan ay tahay mid aan la aqbali karin in xadgudub noocaasi la sameeyo waaye haddaba arrinta halkaasay maraysaa ninka Netanyahu raaligelin buu dhiibay waxaana leeyahay arrinta waxaa keenay Qatar shuruud bay ku xirtay inay dib ugu laabato wada hadallada maanta waxaan idin soo gudbinay Israa'iil oo ku andacoonaysa in Qatar laga saaro wada xaajoodka laakiin markii la isla kulmay oo Netanyahu iyo Trump kulmeen Netanyahu runta loo sheegay waxa la Qatar lagama maarmo haddii la doonayo dagaalkaas in la soo afjiro albaabka Xamaas laga galo waa Qatar baalay marka Qatar aan la hadalno Qatar marka maxay tiri haddii aan dib ugu laabanayno wada xaajoodka annagu waxaan u baahanahay raaligelin hadda ka hor marka Israa'iil waxaanu kala way samaysay dhowr jeer arrimo caynkan oo kala marka arrintaas sidaas ayay ku soo dhamaatay laakiin waxa ka hadlay arrintan raaligelinta oo la yaab leh gudoomiyaha xisbiga dimuqraadiga ee Israa'iil Yair Golan wuxuu ku tilmaamay raaligelinta ra'iisul wasaaraha Israa'iil uu siiyay Qatar in ay tahay mid markaasi bahdilaad ah waxaana uu yiri waa hoos u dhigid taas uu ku tilmaamay inay tahay mid markaasi bahdilaad ku ah Israa'iil iyo Netanyahu sida hadalka oo u dhigay waaye wararka dhanka diblomaasiyadda intaan ka bixin waxaynu eegaynaa dhanka Mareykanka halkaasi oo senataro ka tirsan aqalka sanadka ee waddanka Mareykanka la sheegayo inay ku booriyeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump in markaa uu soo afjaro dagaalka ka socda Mareykanka Gaza isla markaas la soo celiyo maxaabiista Israa'iil ee lagu haysta halkaasi waxay sidoo kale ugu baaqeen madaxweynuhu inuu cadaadis dhaba saaro ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu si uu aqbalo hindisaha heshiiska xabajoojinta arrintan ayaa waxaa la sheegayaa in ay soo jeediyeen hogaamiyaasha ka tirsan xisbiga dimuqraadiga kuwaasi oo dalbanaya Netanyahu inuu isticmaalo in Netanyahu cadaadis lagu saaro dagaalka joojintiisa oo Netanyahu uu isticmaalo awoodiisa warar kale arrimahan la xiriira wakiilka Shiinaha ee qaramada Midoobay ayaa waxa uu sheegay in dhismaha dawlad Falastiini ah oo madax banaan ay tahay xuquuq qaran oo asaasi ah laakiin aysan ahayn arrin hadiyad iyo abaalmarin loo siinayo Falastiiniyiinta wuxuuna taasi ku tilmaamay in Beijing ay taageersan tahay xalka laba dawladood dhinaca kale safiirka Britain u fadhida qaramada Midoobay ayaa iyaduna waxay sheegtay in Israa'iil aan laga ogolaan karin in ay ku darsato daanta galbeed dhulka ay haysato waxaana ay waa dhulka Israa'iil ay iminka doonayso inay ku darsato daanta galbeed waxayna sheegtay in talaabo caynkaasi ah ay wiiqayso rajada nabadeed danjiruhu waxay soo dhaweysay dadaalada socda ee ay wadaan Mareykanka Qatar iyo Masar si loo joojiyo rabshadaha halkaasi ka aloosan iyo dagaalada
loona soo afjaro dagaalka xabajojidna loo gaaro oo hagaag haddaba intaan u gudbin warka la xiriira 20 qodob ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu soo bandhigay iyo shirka jaraa'id ee wada qabteen Netanyahu iyo Trump waxaynu ku hormaraynaa intii shirkan uusan dhicin isla markaasna aan la soo saarin qodobadan Hamas ayaa waxay soo saartay war ku aadan sii deynta maxaabiistan bacdama la ogaa oo mar hore la soo disiyay qodobada heshiiska ayna ka mid tahay 48 saac gudahood in lagu soo daayo maxaabiista marka lagu dhawaaqo heshiiska haddaba mas'uul sare oo ka tirsan ururka Hamas ayaa waxa uu ka hadlay aragtidooda iyo mowqifkooda la xiriira sii deynta maxaabiista Tahir al-Nunn oo ka mid ah mas'uuliyiinta sarsare ee ururka Hamas ayaa u sheegay telefishinka Al-Arabi ee laga leeyahay waddanka Qatar in kooxdu ay diyaar u tahay inay sii deyso dhammaan maxaabiista marka dagaalka Gaza uu dhamaado isagoo sheegay in 48 saac gudahood sii deynta maxaabiista ay ku xiran tahay heshiiska ugu dambeeya ee xabajoojinta al-Nunn arrimahan ka hadlayay wuxuu yiri xigasho maxaabiista ku jirta Hamas gacanteeda waxay ku xiran tahay dhamaadka dagaalka iyo bixitaanka ciidamada guumaysiga ee Gaza haddii tani dhacdo maalmaha ugu horeeya bartamaha ama si tartiib ayay u dhici doontaa waxayna taasi ka mid noqon doontaa wada hadallada waxaan diyaar u nahay in aan sii wadno wada hadallada isla markaasna aan sii deyno dhammaan maxaabiista aynu hayno kuwa nool iyo kuwa dhintay meydadkooda wuxuu intaasi ku daray in qaarkood maxaabiista geeriyootay in loo baahan yahay qalab lagu soo saaro meydadkooda taas oo uu sheegay inay qaadan karto waqti al-Nunn ayaa carabka ku adkeeyay in aysan weli helin qorshaha cusub ee Mareykanka balse marka si rasmi ah loogu soo bandhigo Hamas markaas ay ka baareen degi doonto oo ay soo saari doonto mowqifkeeda cad wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin dawlad farsamo oo maamusha Gaza iyo daanta galbeed isagoo diiday in Hamas hubka ay dhigayso ilaa dhulka Falastiiniyiinta laga xoreynayo waaye haddaba qodobkaas marka laga tago goor dhaweyto waxaa shir jiraa'id wada qabtay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu dabcan wararka iyaga waad kula socoteen wada hadallo adag inay ahaayeen wada hadallada markii hore waxaa la soo bandhigay in 22 qodob oo ka kooban yahay hindisaha laakiin Trump wuxuu ku dhawaaqay 20 qodob oo hindisahaasi ah wuxuu ku bilaabayaa hadalkiisa in ay tahay maalin weyn oo taariikhi ah oo ilbaxnimada adduunka taariikh u leh haddaba aynu daawanno inta hore madaxweynaha Mareykanka markuu bilaabay hadalka waxa uu ku bilaabay iyo kelmadihii uu ka yiri halkaas So this is a big day, a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization. wuxuu sheegay inay tahay maalin weyn oo xitaa noqon karta macquul ahaan maalintii ugu weyneed ee ilbaxnimada haddaba 20 qodob aynu eegno oo la soo bandhigay waxaa 20 qodob horta ka mid ah in Gaza ay maamuli doonto dawlad ku meel gaar ah oo farsamo Israa'iil aysan qabsan doonin waxa kale oo qodobada ka mid ah dadka reer Falastiin inaan la barakicin doonin ama aan la qasbi doonin waxa kale oo ka mid ah qorshaha haddii labada dhinac ay aqbalaan qorshaha dagaalka isla markii inuu joogsado iyadoo la sii deynayo dhammaan maxaabiista nool lana soo wareejinayo meydadka maxaabiistii geeriyootay muddo 72 saac gudahooda Israa'iil waxay sii dayn doontaa 250 maxbuus oo ku xukuman xabsi daa'in waxa kale oo la sii dayn doonaa 1700 maxaabiis Falastiiniyiin ah oo laga qabtay Gaza wixii ka dambeeyay 7 Oktoobar 2023 muddadaasi dhammaan howlgallada militariga waa la joojin doonaa si loogu diyaar garoobo bixitaan buuxa oo heerar oo ciidanka Israa'iil ah xubnaha Hamas ee ballan qaada ama aqbala nabadda waa la saamaxayaa oo waa la cafinayaa halka kuwa kale loo samayn doono wadan nabdoon oo ay uga baxaan Gaza waxaana ay tagi doonaan wadamadaasi lama sheegin ciidamo goboleed iyo kuwa caalami ah ayaa amniga Gaza la wareegi doona waxayna tababari doonaan booliiska Falastiiniyiinta gargaarkuna Gaza wuxuu u gali doonaa si buuxda Mareykanku wuxuu fududeyn doonaa wada hadallo u dhaxeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'iil si loogu wada noolaado nabad waaye qodobka marka ugu muhiimsan waa qodobka 19 qodobkaas wuxuu xusayaa in la qaadan doono wado lagu dhisayo dawlad Falastiiniya tan
qobrada waxay ku macnaynaysaa isbedel ku yimid mowqifkii Mareykanka ayadoo sidaasi ay tahay ayuu haddana Trump shirka jiraad wuxuu ku dhaliilayaa wadamada aqoonsiga dowladda Falastiiniyiinta oo yiri si hadalka u dhigay si doqonimo ah ayay u aqoonsadeen dowladda Falastiin inkastoo bayaankiisa qodobka 19aad uu dhabaha u xaarayo dowlad Falastiiniya in la dhiso waxa kaloo la sheegay in la sameyn doono guddi loogu magac daray golaha nabadda waxa hogaamin doona ra'iisul wasaarihii hore ee Britain Tony Blair laakiin shirka jiraa'id Trump uu qabtay iyo hadalkiisa isla Netanyahu garab taagan wax ka doon buu sheegaya waxa uu Trump sheegay iyo qodobada la xusay oo xitaa aqalka cad uu soo gudbiyay qoraal ahaan ka hor intii wada hadaladan shirka jiraa'id aan la qaban Netanyahu wuxuu leeyahay horta hadafkeennii dagaalka aynu dejinay ayuu dhigayaa buu yiri heshiiskani ama hindisahani shantii qodob ugu muhiimsanayd oo ay ka mid tahay Hamas in la burburiyo maxaabiista in la soo daayo Gaza si hadalka u dhigay in laga tirtiro Hamas iyo wax ugu yeeray argagixisada qatar inay ku noqon Israa'iil mar dambe iyo in Israa'iil ay yeelan doonto amniga halkaas marka maxaa iskhilaafsan hindisaha Trump ee leh wadamo carbeed iyo kuwa caalami ah ayaa la wareegi doona ammaanka halkaas marka waxa muddo inay ku kala duwan yihiin Netanyahu wuxuu kaloo leeyahay maamulka Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas uu hogaamiyo wax shaqo iyo shaqo kuma yeelanayo qorshahani lukuma yeelanayo meesha hindisuhu uu leeyahay mar dambe ayay luku yeelan doonaan maamulka Falastiiniyiinta wuxuu kaloo Trump leeyahay waxa la magacaabi doonaa dadka la shaqayn doona ama guddiga farsamada ee la shaqayn doona Tony Blair arinta marka ugu daran maxay tahay marka Trump shirka jiraa'id wuxuu ka yiri haddii Hamas aysan aqbalin hindisahan Israa'iil waxaan sii doonaa awood kasta oo dagaalka ay ku burburiso Hamas oo ay ku wada dagaalka Falastiiniinta marka arintan isla markii ka falceliyeen waxay yiraahdeen maxaa dhimanaa Mareykanka hub awood taageero dhanka diblomaasiyadda wax walba ku taageeray maxaa hadda haray arinta marka meesha ugu daran waa halkaas Hamas inay baxdo hubka ay dhigto wali Mareykanka qasa iskaga baxaan goor dhaweyta waxa hadlay mas'uul ka tirsan ururka Hamas wuxuu sheegay in aysan helinba waxa la yiraahdo hindise dagaalkan lagu soo afjarayo mas'uul lagu magacaabo Mahmoud Mardawi ayaa u sheegay telefishinka Al Jazeera inaysan helin hindisihii qoraalka ahaa ee arintan ku saabsanaa waad maqlayseen mas'uulkii hore Tahir Al-Nono inkastoo hadalka uu jeediyay ka hor intii aan la soo bandhigin hindisahan oo shirka jaraa'id ay sawadaan qaban Trump iyo Netanyahu laakiin wuxuu leeyahay wax walba waxay ku xiran yihiin dagaalka inay joojiso Israa'iil Hamas marka ay arintan loo gudbiyo inkastoo Stephen Witkoff uu sheegay inuu u gudbiyo labada dhinacba haddana waxa laga sugayaa go'aanka arinta kale oo muhiimka marka maxay tahay Netanyahu isla meesha ayuu wuxuu ku aqbalay hindisaha sababta muxuu leeyahay wuxuu hindisahani wataa buu yiri aragtidii aan qabnay ee dagaalkan aan dejinay 8 Oktoobar 2023 maalin kadib marka dagaalku uu bilowday arinta marka qobrada maxay ka yiraahdeen dabcan waa sheeka cusub hadda soo dhacay warkan hadda ayuu soo dhacay dabcan waxa la arki doonaa waxa laga yiraahdo laakiin goor dhaweyto intaan barnaamijkan soo gelin waxa hadlayay Marwan Bishaara waa nin Falastiiniya waa khabiir telefishinka Al Jazeera qaybta Ingiriiska ka tirsan wuxuu leeyahay waxa ka duwan mayna arag biir wixii hadda ka hor aynu aragnay 1991kii 93 iyo 2003 sidan oo kale ayaa waxa loo sameeyay biir ballanqaadyo iyo hindisiyaal kala duwan waa shirkii Madrid 1991kii 93 shirkii Oslo oo Falastiiniinta xitaa ay ku aqoonsadeen dowladnimada Israa'iil Maxamuud Cabbaas hadda ururku hogaamiyo laakiin Yaasir Carafaad ba xilligaas hogaaminayay xilligaas waxay aqbashay Falastiiniyiinta jiritaanka Israa'iil waagaas wuxuu leeyahay Marwan Bishaara daanta galbeed Israa'iiliinta la dejiyay qaanuunka si ka baxsan lagu dejiyay tiradooda waxay ahayd 72,000 laakiin maanta waa 750,000 waagaas George Bush kii weynaa iyo maamulka Bill Clinton labada waxay lahaayeen waxaan ka shaqeynaynaa
bariga dhexe cusub hindise cusub oo Falastiiniinta iyo amniga sidoo kale markii uu dhacay dagaalkii Ciraaq George Bush kii yaraa isna hindise kale oo la yimid oo sidan oo kale ah wuxuu yiri waxaan hayaa aragti dawlad Falastiin lagu dhisayo laakiin waxa kama socon wali markaas waa markii Ciraaq la weeraray marwa mishaar markuu wuxuu leeyahay waxa moodaa wax walba hadda inay isku si yihiin Iran baa la weeraray hadda aragtidan baa la soo gudbiyay tan kale wuxuu yiri arrinta la yaab kale waxay tahay dadka Falastiiniyiinta miis kale ma fadhiyaan go'aanka wax kuma leh haddana waxa leeyahay Xamaas hubka ha dhigto maamulka Falastiiniinta qayb ka noqon maayo amniga Netanyahu wuxuu leeyahay anaga wali maamuleyna laakiin Trump wuxuu leeyahay ciidamada la wareegi doona ammaanka arrintu marka meel adag bay maraysaa Xamaas marka inay madaxa gacmaha saarto ma aqbalaysa sababta Xamaas dhowr jeer waxay tiri Israa'iil ma heli doonto kuna heli mayso heshiis iyo wada hadal wax ay ku weeday dagaal dhowr jeer barnaamijyada ugu dambeeyay waan ku xusanay arrintan laba mid bay noqon kartaa wayna cadaata caaw sida khubarada ay sheegayso markuu leeyahay Trump haddii Xamaas aysan aqbalin waxaan sii doonaa taageerada ay u baahan tahay macnaha dagaalka in sidii doonto u samayso weey banaanbaxyadan iyo hadda qaylada socota iyo dagaalka laga soo horjeeda iyo ma noqon doontaa marka in la yiraahdo Xamaas arrintaas way diiday oo marka Israa'iil ay u hesho si madax baan waxay doontaa inay u samayso iyo in ay isdhiibto Xamaas dabcan waa laba arrin oo adag oo laga sugayo go'aankeeda mas'uuliyadda Xamaas laakiin hadda warka ugu weyn waa warkaas waayahay haddii ay wax ku soo kordheen aynu eegno wararkan waxaa la sheegayaa in Qatar iyo Masar ay u gudbiyeen Xamaas hindisaha Donald Trump haddeertan inta barnaamijka wadnay warkaas baa soo dhacay laakiin Xamaas hadayta maxay tiri anagu maana helin bay tiri wax hindisa oo ku aadin dagaalka joojintiisa inkastoo heshiis la gaaray oo Trump hadda uu ku dhawaaqay in heshiis la gaarayo xilligan oo barnaamijka aynu wadno duqeyn baa socota waxaana la sheegayaa duqeyntu inay ka socoto meelo kala duwan oo kamid ah Mareykanka Gaza sidoo kale hadda waxaa soo dhacay war sheegaya aqalka cad inuu sheegayo Israa'iil ma qabsan doonto Mareykanka Gaza daanta galbeedna lama wareegayso waayahay waxa kaloo soo kordhay hogaamiyaasha mucaaradka Israa'iil Yair Lapid iyo Benny Gantz oo soo dhaweeyay hindisahan sidoo kale qoysaska Israa'iiliinta ee maxaabiista looga haysto ehelkooda Mareykanka Gaza ayaguna waa ay soo dhaweeyeen xaaladda marka halkaas maraysa wuxuu ku soo kordha barnaamijyadeena dambe kugu soo gudbin doonaa haddii alla idmo markan aynu eegno sheekadii ugu dambeysay ee barnaamijka oo aynu aalaba ku soo qaadano sheeko ka duwan sheekooyinka barnaamijka aad ku soo daawateen waxaan idiin haynaa sheeko la yaab leh dalka Japan waxaa ka taagan arrin si weyn loo hadalhayo baraha bulshadana qabsatay shirkad dhanka online-ka sawirada ku iibisa ayaa waxay joojisay iibinta sawir aan tusi doono sawirkan waa sawirada loogu talagalay ilmaha caloosha ku jira in la hubiyo calooshaasi ama ilma galeenka ama hooyada inay uur leedahay ama haweeneyda inay uur leedahay laakiin mushkiladda jirta waxay tahay sawirkan ayaa dad badan waxay u isticmaaleen si been abuur macnaha haween aan uur lahayn ba waxay leeyihiin hadda waxaan soo saaray ultrasound waxa loo yaqaan ama raajada ilma galeenka waxaana ii cadaatay inaan uur leeyahay arrintii marka waxay noqotay arrin dood adag ka dhalisay marka shirkadda la yiraahdo Mercari oo suuqa online-ka ugu weyn waddanka Japan ayaa imika waxa uu go'aansaday inuu mamnuuco iibinta sawirada uurku jirka si looga hortago dadka inay u adeegsadaan arrintan khiyaano la xiriirta uurka been abuurka ah inkastoo arrintan la yaab ay tahay haddana sawiradan uurku jirka ayaa waxa lagu iibiyay baa la yiri abab markaasi ku jira suuqaasi ganacsiga arrintaasi oo noqotay baa la yiri mid dhibaato keentay sheekada marka waxa la yiri waxa ogaaday qof ayaa wuxuu arkay sawirkan oo dad aad u fara badan dhowr jeer ay soo dhigeen baraha bulshada ay isticmaalaan gaar ahaan haween ama nin leh xaaskay uur bay leedahay laakiin arrintu ay saxba ka jirin sheekada marka waxay noqotay in malaha dee waxaan maqli jiray musuqmaasuq uur marka sheekada hadda waxay maraysaa musuqmaasuq uur bay maraysaa waayahay inta ayaan kusoo gabagabaynayaa caawa barnaamij